waxaad ogtihiin baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare maalmihii u dambeysay waxaad maqlayseen waxay ansixinayaan xeerka batroolka. waxaan dowladda Puntland haddaan nahay si cad oo dheer u sheegaynaa in arrintaas aqalka sare laga saxeeyay iyo aqalka hoose la yiraahdo inay Puntland qayb ka ahayd. waxaan ku ammaanayaa senatarada reer Puntland ee markaa ku sugnaa inay shirki isaga baxeen markii la baal maray procedure-kii iyo habraacii xeerarka lagu ansixin jiray, iyadoo dalkii aan aragno ammaan darrada ka jirta, iyadoo aan aragno siyaasadda iyo meesha ku socoto, haddana in adduunka la jahwareeriyo oo la yiraahdo dalku waa fiican yahay, dabaaldegi iyo guddiyaashii baan qabanay, xeerarkii batroolka iyo dalka in ceelashiisa action la geliya ayaan ka shaqaynaynaa. runtii wax isqaban kara ma aha. intaan in ka badanna kama sii aamusi karno khaladaadka socda ee jira. warqad rasmi ayay ka soo saari doontaa dowladda Puntland, laakiin waxaan caddaynaynaa shirkii May ee halka la isugu yimid madaxda dowladaha federaalka xubnaha ka iyo dowladda federaalka, waxyaabaha ugu weyn oo shirkaasu la burburay waxaa kow ka ahaa sharciyada masiiriga ah ee dastuurku uu dhigayo in laga wada tashado, in la geliyo wada tashi sax ah oo dhab ah oo ugu horeysa hanaanka siyaasadeed ee dalku aadayo, hanaanka amniga loo sugayo, hanaanka khayraadka dalka loo qaybsanayo, iyo dhammaan sidii dalka loo xasilin lahaa.